السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qisadan waxay u dhacaysaa sidatan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin ganacsadaha waxaa laga qaatay maalkiisa oo idil soo wadada socdo. Markaasoo wuxuu ku fikiray inuu u aado madaxweynaha si maalkiisa loo soo dhiciyo. Muddo sanad ah uu haleeli waayay inuu arko madaxweynaha ama uu la kulmo. Ninkii ganacsadaha wuxuu ku fikiray inuu xeelad la yimaado. Maalin Jimco ay tahay, salaada khudbada kadib ayuu dadkii dhan isku yeeray. Wuxuuna ku yiri dhageysta kadib madaxweynaha u geeya. Dadkii ayaa dhageystay hadalkiisana waxaa ka mid ahaa sidatan. Waxaan leeyahay wuxuusan Ilaahay lahayn. Waxaa agteeda yaalo wuxuusan Ilaahay agtiisa oolin. Waxaa xambaarsanahay wax makhluuqa Ilaahay ka mid ahayn. Waxaase jeclahay fitnada, waxaase necbahay xaqa. Waxaan qirsanahay waxaan arkin. Wees la'aan ayaan salaada dugtaa. Dadkii ayaa la yaabay. Warkii way qaadeen waxay u geeyeen madaxweynaha. Markaas waxaa lagu amray inay u keenaan ninkii. Ninkii markii loo geeyay waxaa lagu yiri maxaa kuu kalifay inaad hadalkan tiraahdo. Ninkii baa ku yiri maalkii ayaa laga dhacay si aan ku arko ayaan u dhahay. Ganacsadihii waxaa lagu yiri waayahay ii fisir kadibna waad leedahay maalkaada. Markaasoo ganacsadihii wuxuu ku bilaabay hadalkiisa sidatan. Markaan dhahayay waxaan leeyahay wuxuusan Ilaahay lahayn, waxaan ula jeeday waxaase leeyahay xaas iyo awlaad. Ilaahayna xaas iyo awlaad ma lahan. Markaan dhahayay waxaa agteeda yaalo wuxuusan Ilaahay agtiisa oolinna, waxaan ula jeeday waxaa agteeda yaalo dhagar. Ilaahay agtiisana dhagar ma taalo. Markaan dhahayna waxaan sitaa waxa makhluuqada Ilaahay ka mid ahayn, waxaan ula jeeday waxaan xifdisanahay aayadaha Quraanka Kariimka. Quraankana ma ahan makhluuqyada Ilaahay. Markaan dhahayay waxaan jeclahay fitnadan, waxaan ula jeeday waxaan jeclahay maal iyo awlaad. Halka Ilaah subxaanahu wa ta'ala oo noogu sheegay innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna. Markaan dhahayay waxaan necbahay xaqan, waxaan ula jeeday waxaase necbahay dhimashada iyadoo ay tahay mid xaq ah. Markaan dhahayayna waxaan qirsanahay waxaan arkin, waxaan ula jeeday waxaan rumaysanahay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mana aan arkin. Markaan dhahayayna salaada wees la'aan ayaan dugtaa, waxaan ula jeeday nabiga ayaan ku saliyaa aanan wees qabin. Ninkii markaas waxaa lagu yiri waayahay waad leedahay maalkaada. Haddaad ka wada hesheen fadlan subscribe, like iyo share.